kusoo dhawaada Sharaf Films haddii aad ku cusub tahay fadlan YouTube subscribe saar siina shaqada si asxaabta aad kula daawato aad iyo aad u mahadsantihiin cabsku kusoo dhawaada Sharaf Films aad baan ugu dhawaada YouTuber sare Cabdiqaadir Sharaf Films nadirtu waxaad ii sheegtay inaad jawaab ka bixinayso inaan Hargeysa ka soo hadlay oo sheegtay inuu yahay Cali Oromo intaana ku weydiin sababta aad u sheegatay inaad Cali Oromo tahay marka hore magacaaga saddexan oo dhameystiran waxa weeyaan Cabdishakuur Jaamac Cilmi صح Cabdishakuur Jaamac Cilmi Cabdishakuur halkaad ku nooshahay waxaan ku noolahay gobolka Togdheer gaar ahaan xaafadda October magaalada Ragga gobolka Ragga Cabdishakuur waxaan filayaa social media aad maadaama tin awaan daayar heeso badan oo sameeyo qoray dhawaan insha Allah filaya inuu bilaabo oo soo saaro fanaaniin daayar oo badan Cabdishakuur waa maxay sababta kugu kalifay inaad sheegato Cabdishakuur Cali Oromo Cali Oromo waa su'aal aad u fiican Sharaf Films saaxiib waxa weeyaan in sahan ka lahaa iyo waxay ugu kalifay inaan sheegto Cali Oromo sheegto Cali Oromo waan naqaanaa waa nin weeyaan YouTuber sare weeyaan isna job isticmaala aad iyo aad marka bulsho xogaa leeg ba ku xidhan garanaysaa sax marka waxaan arkay iyagoo had jeer ka codsanaya inay wajigiisa dhabtaa inuu soo bandhigo arkaan aad iyo aad marka waxaan hindisay inaan isagii codkiisii barnaamijkiisii oo kale intaan samaysto aan soo geliyo YouTube aad tirada Cali Oromo sax marka si ay isna adatoole ama jawaab aan uga helo ama wajigiisa dhabtaa bulshadii ula wadaago sax media ku xiran intaas ku kaliftay ninka Cali Oromo la yiraahdo YouTuberka sana sheegay Hargeysa jooga inta uu sheegtay inuu yahay Cali Oromo waxa la ku cawday in ay dad ay sheegteen sidaa darteed buna muuqaalkiisa wali wadaagay dadkan isticmaal degalka social media intaas xiriir ma sameyseen ama dadweyne kala dab qaaday Cabdiqaadir oo wali wax xiriir aan wada sameynay ama ciidan kala dab qaaday ma jirto صح wali xiriir ma sameeyay anna isku diibay la sameeyay sida anigu waan war xogaa la ku maqlay ama sidii soo gaadhay waxa la yiri ninkan dad Oromo ayuu la noolaan jiray sidaa darteed ayuu ku bartay af Soomaaliga marka ay dadka Oromada ah markay macnaha af Soomaaliga baranayaan sano marka uu hadlo ayuu hadlaa marka xal dad Oromo la noolaan jiray wasaan ku maqlay anigu ma oran sida ku maqalaa waxa filayaa dadyo badan oo YouTube ku xidhan soo comment gareeyay sababtu sidaas ay ahayd loo soo duubay videoga sidaas aan la soconaysaan waana mahadsantiin waxaan leenahay mar labaad YouTube subscribe saara si shirkadda san nala socotaan noogana haysaan macluumaad badan oo aad ku farxi doontaan bye